gabadhan marka waxa soo doontay markii hore wax baranaysay waxa soo doonan jiray niman baa soo doonan jira dadkaas markay soo doontaan adeeradeed iyo hooyadeed iyo walaalkeedii markay yiraahdaan guurso waxay dhihi jirtay may aan ardeed baan hay ma rabaan ardayda inaan guursado jaamacadii way dhamaysay Soomaa hadda markii la soo doonto wax ay ku cudur daaratay marmarsiimo haysato waxay ku tiri markii ninkii Cabdisalaan waxaan rabaa inaan yani waxaan ku marmarsiyo hadda wixii ka dambeeyay ma helay hooyadii walaalkayna mar walba kolba qofkii soo doontay igu leeyihiin guurso iyo abtiyaasheedii adeeradeed marka waxaan rabaa aniga inaan isguursanay soo doono adaan ku joogan ku doononaani marka adigu jaamacada dhameysay markaas aan isguursanayna wuxuu dhadaan kharash ma haystaan ku soo doono ilaa gabadha marka la soo doonayo waxa loo baahan yahay kharash mana dhihi karo reerkoodii intuu gabadh baan doonanaya gabadh caasimada haduu guursado sida qof gabadh gaal ah guursaday oo kala camal oo diinta ku jirin baa loola dhaqmayaa gabadhii caasimada laga dhigayaa wax eebaysan oo takooran oo xun ma dhihi karo reerkoodii gabadh baan doonanaya ay kaalay gabadha iyo doon lacag ii soo dir waxa ma dhihi karo wiilkii wuxuu marka reerka iyagu dadka caasimada degan khaasatan gabdhaha caasimada wax kale ka aaminsan yihiin ma dhihi karo gabadh la ii doono mana dhihi karo kharash gabadh baan doonanaya hala ii soo diro wuxuu yiri marka anigu wax kharash ma haysto isug inta jaamacada ka dhameynay shaqo ka bilaabayo may waxay tiri marka inta jaamacada ka dhameynayso kuma sugi karee jaamacada goorma dhameynay marka sanadkii labaad marka bilow yahay 3 sano u dhiman waxay tiri kuma sugi karayo sababtoo reerkayga markasta markuu qof isoo doonto waxaan dhihi jiray jaamacad baan dhigtaa ardayad baan ahay marmarsiyahasan kaga badbaadi jiray marmarsiyahan meesha uu ka baxay waxay tiri qof la isiya ka baqaya qoorta la ii galiyo ana waan ku jeclahay jacaylkeen inuu naga khasaaran ka baqaya way fikireen waxay tiri lacagta ana bixinay ilaa ana lacag haysta gabadha lacag bay haysataa lacagteeda iyada maamulata cid ku kantaroosha male hal wiil baa la dhashay wiilkaasina uu ka yar yahay waxay tiri marka ana ku siinay lacagta ugu soo doonan lahayd ana ku siinay marka soo doonatidna day u sheeg dadkan abtiyaasha iyo adeeradii dadka adiga soo dooranaysid inaad tuulada ka timid tuulada magaceeda wax walba dadka tuulada dhaqankooda gabdhaha caasimadeen wax kale ka aaminsan yihiin saas darteed inaad reerkiina u sheegin wax walba u sharax wiilkii sidii buu yeelay gabadhii lacag bay siisay markii hore lacagtii uu ka cudur daartay uu diiday lacag inaad siisay mar rabo markii waxay tiraahdaa doonto deyn u qaado markaad adigu shaqada bilowdid baad horta ii soo celin doontaa horta lacagtan qaado wiilkii lacagtii uu gabadha ku doonan lahaa hadiyadii loo keeni lahaa dhar qurux badan iyo wax wuxuu ku soo iibsan lahaa marka gabadha la soo doonanay hadiyadii wax baa loo keenay wixii oo dhan gabadha lacagteedii way isku kharash gareeyay gabadhii buu soo doontay gabadha adeeradeed iyo abtiyaasheed abiyadu uu dhintay adeeradeed iyo abtiyaasheed ka mas'uula iyo walaalkeed oo ka yar oo arday jaamacad dhigta oo ninkan Saalax baa la yiraahdaa walaalkeed gabadhan waxa la yiraahdaa Fawsiya ninkan Cabdisalaan bay isla egyihiin Saalax marka isku da meelahaas ay yihiin jaamacadana isku heer bay marayaan laakiin isku jaamacad ma dhigtaan way la yaabeen marka qof kaliya iska socdo gabadh doonanay waligeed ilaa lama araga qofka markuu gabadh doonanay waa inuu dad wato ehel iyo qaraabo ah qofka waxa kaliya iska socdo muxuu xagan ugu hagaagayna bari ka maalin tuulada uu sheegayo leeyahay waan deganahay inuu degan yahay kala maxaan ka ognahay qabiilkiisa maxaa laga ogyahay waa ayo familkiisu asalkiisa farciisa yaa garanaya gabadhu waxa jirana garanaya halkaas uu degan yahay reer hebel weeyaan reerkoodu gabadh caasimada ku dhalatay gabdhaha caasimada hadee oo caasimada ku nool baan guursanaya haduu yiraahdo yani waxay tir waxay ka aaminsan wax nooc kala ah way takoorayaan way fadaxaynayaan saas darteed uu qaranaya wuxuu markaan isguursano markaas uma rabaa reerkayga yani inaan u sheego oo niraado gabadh baan guursaday waa xaaskaygii laakiin waan guursanay haduu yiraahdo waan ku habaarayna habaariyo duco kala door wax saasay dhahayaan reerkii gabadhii Fawsiya way ku qanciyeen waxay dhahan may ninkan kuma siirinay naga dhaaf qofkan kaliya iska socdo waan ka shakinay gabadhii dadkii oo dhan hortooda intii istaagtay bay tiraan raba oo jecel ninkan kaliya iska socdaan doonaya waana raba ana jecel ana ku qanacsan ninkan hala igu daro ma doonayo qof kale ma guursanayo qof kale ninkan u baan raba saasa ka go'an miya gabadhii ninkii waa la siiyay muddo isu doonanaan jireen marba lacag bay soo qaadaa waxay tiraahdaa xisbeen aadina mar waxay dhahdaa shaleemeen aadina marba meel waxyaabuhu isagu ku hamiyi jiray oo dhan iyo riyooyinkiisa gabadhana baa rumaysayba sababtoo gabadhina lacag loo buuba helay lacag bay soo qaadaa way ka xaysaa dalxiis baabuur baa la soo iibsaday meelaha sida loo soo wareega shaleemooyinkay geysa markuu jaamacadiisa ku maqan yahay mooyeen gelinka dambe habeenkii oo dhan meelaha sida u soo wareegsan markii dambe gabadhi waxay tiri intaan guri inoo kireeyo oo inoo qalabeeyo oo kharashka dhanbe aanu inoo kharash gareeyo guri ayna degno hayo xurdaada lacag leeyo taajirade 3 sano inaan sugno intaan jaamacada dhameeyay shaqo intaan helayo shaqo markaan helo intaan mushaar ururinayo 6 sano kale noqoni 3 sano jaamacada dhameeyay 3 sano kharash urursanay intaan shaqada raadinay marka lagu daro gabadhi waxay wax walba ana bixinay wax walba gabadhi waa bixisay laakiin reerkoodu ma oga markasta ninkani waxay u dhiibtaa lacag wuxuu iska dhigayaa marka isagu sida lacagta inuu isagu wato kale markuu gabadha u iimaanay markasta hadiyadu u keenaa hadiyadahan u keenay waxaan oo dhan waa lacagta iyada u dhigtay markuu lahaa hal ii meheriyay meherku u dhacay dahab far badan buu u keenay lacagta iyada u dhigtay dahabku uu soo iibiyay guri buu kireystay wuu qalabay laakiin waxaan oo dhan waa lacagtii Fawsiya
guri buu kiraystay wuu qalabaystay gabadhii waa loo galbiyey meel bay degeen meel markay degeen intay lacagta ku warwareegayeen ku dalxiisayeen iyo lacagta gabadha dahabyada loogu soo gaday iyo lacagta maxay ahayd gabadha lagu galbinayay lacagtan arooska lagu dhiganayo waa lacagteedii akoonadii wax ugu jireen lacagtii gabadha way ka dhamaatay dukaamo iyo guryo iyo waxyaalaha hanti waaweyn ah oo hadday iibisay la ogaani bas u soo haray wixii lacag bangiga u taalay oo dhan waa la dhamaystay waxay tiri marka gabadhii waxaan rabaa inaan iibsado guri ay lahayd bay tiri gurigan aan iibsanaya hooyadeedii walaalkeed baa ogaaday waxa lagu yiri guri maxaya abtiyaasheed bay u sheegeen waxa la maxad gurigaaga u iibinaysaa waxay tiri ninkayguna waa arday lacagtii uu hayay kharashkiisii oo dhan waa aroos baan iyo wax baan ku dhiganay adi lacagtaadii waxa la away ciyalkan marka lacagta loo qaybinayay imaamadan qof kasta lacag badan baa la siiyo akoon loogu shubay lacagteedu waxay tiri waan isticmaalintan jaamacada dhiganayo dhan baan isticmaali jiray waxa la fahmay marka ninka lacagta gabadha ku soo dooranayay tuu ku aroosanayay dahabka wax walba lacagteedii inay ahayd gabadhii waa la yaabtay waa la canaantay qof weyn baan ahay bay tiri qaan gaadho dhowr iyo 20 sano jirtay maxaa idinka galay lacagtayda anaa la guriyahaygan anaa la dukaamadayda anaa la lacagta akoon ku jirtay anaa la qofna waxay tiri hantideeda waxba kama galin oo hantidii aabahay aan ka dhaxlay qof weyn baan ahay waxay tiri anaa ku tasarruf karo sidaan doonan u dhaqmaya cid ila hadli karta ma jirto waana qof weyn ficil naag weyn oo jaamacad ka baxday weyn aday ku talaabay marka dad xoolahaaga ninkan ku guraysid ku gur gabadhii guri bay iibsatay ka bacdi gurigii lacagtiisii bay akoon ku shubatay mudday beelan jiray guri marka la iibiyo hadana magaalo caasimada ku yaala wuxuu noqonayaa lacag badan lacagtii baa muddo waqti la beelanay lacagtii way dhamaatay hadana waxay iibsatay dukaan hanti dhowr shay oo ilahay 3 shay dhul iyo dukaan iyo guri iyo dhamaantood gabadhii way wada iibsay lacagtii sidii loo cunay way ka dhamaatay iyadoo laakiin waqti intay wada joogeen ninkii uu jaamacadii dhameeyay hooyo ay noqotay 3 sano meelahaas ay isqabaan ay wiil dhashay wiilkeeda curad bay gabadhii marka waxay soo istaagtay meel ibra hooyadeedii walaalkeed lacag ma weydiisan karto oo way la yaabayaan markii hore hantidaada iska gadin oo ninka lacagta ka daabi ka kari waayeen gabadhii marka waxay ku qasbanaatay inay shaqo raadsato ninkii marka jaamacada uu dhameeyay laakiin wali shaqo muu helin shaqo iyo wax uu raadinayo meel intuu galay macallimiinta iyo wax lagu tababaro buu wuxuu leeyahay waxaan rabaa wax yar oo tababarka macallimiinta inaan soo qaato si aan macallin u noqdo gabadhii marka shaqo raadsaday gabadhii baa waxay bilowday shaqo iyadoo cunug yarna haysata cunugeeda yar bay meelaha carruurta lagu hayay geysaa way soo yara shaqaysaa waxa yar lacagtay soo shaqaysay bay isku dabartaa ninkii shaqo helay markii uu macallin buu noqday markuu isaga shaqo helay wuxuu ku yiri marka iska dhaaf shaqadan waxaan oo dhan anaa ku biilayo kugu filan adigu gurigaaga iska joog gabadhii wax alaale waxay hanti haysatay oo dhan waa la dhameeyay muddo dhowr bilood waxa sanad dhan bay iyadu shaqaynaysay reerka lacagta iyadu soo shaqaysay ku biilaysay markuu ninkii Cabdisalaam ha shaqo bilaabay gabadhii shaqadii farahay ka qaaday gurigeeda iska joogtay oo warbay yeelatay gabadh kale dhashay Cabdisalaam macallin buu noqday lacag mushahar oo fiican buu qaadanay marka maadaama nin jaamacad ka soo baxay uu yahay oo haddana takhasus uu sii sameeyay macallinimada ah mushahar fiican buu ku shaqaynay reerkii marka nolol yar oo qurux badan bay iskaga noolaan inkastoo gabadha lacagteedii dhamaatay laakiin guri bay degan yihiin ninkan biilkiisu mushaharka uu qaato biil uu ugu filan yahay gabadha yar oo kala u dhalatay 2 caruur ay haystaan xilli ninkii reerkooda uu ka soo maqan yahay 8 sano baa fariin baa uga timiday hooyadii dad tuulada ka yimid oo magaaladan caasimadda yimid baa waxay arkeen oo hooyadii ay tirwiilkeygii ii soo raadiya yaa waxay arkeen ninkii ahaa Cabdisalaam oo marka Cabdisalaam intuu macallin noqday ustaad Cabdisalaam uu yahay oo la garanayo hadii la yiraahdo Cabdisalaam hebel oo tuule hebel ay ka soo jeedo qof kasta soo heli karaba ninka Cabdisalaam hadda baa u yimid hooyadii uga sida fariin waxa lagu wariyahay aabaha uu dhintay ma ogtahay wuxuu yiri ma og ninkan markii la soo yariyay lagu yiri naga tago dibna ha noogu soo noqonin waxa nagu soo noqonin dhahaan buu aamalaha reerkoodii dibna ugu noqonin muu wicin warqad umu dirin kaana inuu cirka ka soo dhacayo kala hooyadii aabihii walaaladii uuba iloobayba tamaaman reerkiina dib uma raadsanin aabihii baa xanuunsaday uu dhintay xilliga dadkani ay fariinta u keenayaan aabihii wuxuu dhintay 3 bilood ka hor waxa lagu yiri aabaha uu dhintay ma ogtahay wuxuu yiri ma ogi aabaha waxa lagu yiri 3 bilood ka hor buu dhintay hooyada iyo walaalada way murugoodeen adigin reerkood u tagi weyday حتى أبها مركو حنو سنة ما تجين أو مركو دنتي ما تجين قفنا عيبة تاعي وإذا أبا كربتها لقولي ورضو تكو وإذا أبا كتري إما وكوباهن ده وحرر كيو يجا يسوي إريه يجا يقول إحنا وصلنا قلنا تعسد هذا عندنا وحدة تيو كلام كاسو قاضينا نقول حيردي خلاص أنا وحدة تيو اللي يسوي قاضي الأم ليني معنا إسلحابة والله وترسني يا والله والربع ما هو إذا بقى ربطه هو إذا أبا كربتها لقولي رضو تولدي كل نقا وصابح مركب قبل إيه فوسية هيد بوح كوي رهبه بعدين تير كي يجي تعسيه هول بقصة كرداء فسحين توقعتي وحن هذه تولد دي سيد شو قاعد يعرفتها gabadhi way iska sii joogtay marka wuu baxay ninkii tuuladii uu tagay hooyadii baad ku farxdo ku dhigtay markay aragtay wiilkeedu 8 sano ka maqnaa waxa lagu yiri madaqan baa tahay adigu maxaad dib noogu soo noqon weyday wuxuu idinka igu yiri ha nagu soo noqonin haddaan ku nidhi marka
marrun baad u malaynaysaa ha nagu soo noqon soo inaad nagu soo noqoto warqad noo soo dirto ugu yaraan soo inaad xataa na soo wacdo ma ina abaha baadhita 3 bilood ka hor markuu xanuunsanaa maad iman wiilka kaliya reerku dhaleen weeyaan marka gabdhaha reerku u jooga laakiin halkan Cabdisalaam ma wax wiil dhaleen waxa lagu yiri marka qof xun baad noqotay oo nacasa reerkiina u soo noqon ka war hayo hooyadii waxay ku tiri marka waxaan ka doonayaa kuugu yeedhanay gabdhahan walaalada ah niman baa qaba nimankaas waxay tirtay waxaan ka cabsanayaa hantidiina inay isku dilaan nin walba intuu yiraahdo ana hantida maamulay